السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجك عالم الإسلام وهذا نقلات كداوتان تي في CNN برنامجك يا آلابا وحين كقادا دقنا دعوينكي قدام به كدعا دلالك عالمك أما بعالم الإسلام أيضا أينو مركاسي كفلان قينو دعودا مركاسي تاغن برنامجك يا مانتا وحا إيقو مرتيا أو إلا فلان قيني دونا يوسف مختار وأساقو كفلان قودا أرمها عربتا يوسف كسر برنامجك aad baan u dhawahay xasan aad baad u mahadsantahay adiga iyo daawadayaasha iyo dhammaan warbaahinta wata hagaag daawadayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijka caalamul islaam oo isbuuc walba maalinta jimcada ahadahan oo kale aad ka dheehataan muqbaahiyaha CNN ayada oo barnaamijka maanta aynu si gooni ah ugu eegi doono dalka Sri Lanka oo isbuucan iyo waliba bilowgii ilaa iyo laga soo bilaabo maalintii axad ahayd ay qaraxyo ka dhaceen dad badan ay ku dhinteen halka kuwa kalena ay markaas ku dhaawacmeen ayada oo xaaladiisu haatan ay tahay mid ay dadku isweydiinayaan meesha ay ku dambayni doonto iyo waliba cidda mas'uuliyadaasi qaadan doonto waa tahay mar labaad ayaan ku soo dhaweynayaa dalka Sri Lanka inta badan hadii arrimaha carabta ayaad ka faallootaa oo markaasi aad ka warhaysaa qaraxyo ayaa ka dhacay dad badan ayaa ku leeday qaraxyadaasi siyaabo kala gedisan ayay warbaahinta uga hadashay maxay tahay ayaad isleedahay arrimahaas oo kale in hal mar dal intaasoo qarax ay hal mar ka dhacaan ama isbuuc gudihii ku dhacaan arrimaha noocaas xasanow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo warbaahinta CNN TV iyo dhammaan daawadayaasha ina daawanaya waata wadanka Sri Lanka wuxuu ku yaalaa waqooyiga qaaradda Aasiya ama Asia runtii waa arrin horta aad looga naxo dad intaa dhan oo cadadka dhan inay laba maalin iyo hal maalin gudaheed ay ku dhintaan si bilaasha ama si aan sabab lahayn oo macna darro ay ku dhintaan waa arrin fajac leh oo aan maarata qof bini aadama uusan u dulqaadan karin ama qof bini aadam ku farxayninba because qofku markuu dhimanayo qof kasto bini aadam martuu u dhinta ama wax kasto nafle laakiin qofku markuu dhimanayo waxa loo baahan yahay inuu ku dhinto sabab qof inuu bilaa sabab la dilo qof inuu naftiisa bilaa sabab ay baxdo diinteena xitaa sharciyan ma banaana waa tahay tan kale oo hadlaynta badan keentay qaraxyadan marka ay dhacayeen oo kale kuwa israacsan bay ahaayeen meelo kala gedisan oo dalkay ka dhaceen waxay u ekeyd in meelaha la beegsada hataa inta badan kaniisadaha iyo hoteelada iyo waqtiga hadana lagu soo aadiyay ay ahayd waqti cibaado oo maalin ahada oo inta badan dadka masiixiinta ay aadaan kaniisadaha marka siyaabo kala gedisan ayay warbaahintii iyo uga hadleen dawladaba xagga tirada haddii aad fiirisay tiradaasi oo kale maxaa lagu qiyaas karaa xasanow warbaahinta horta caalamka si kala bedelan iyo si kala duwan ba uga hadashay inkastoo dawladda ay ku dhawaaqday in la joojiyo wararka kutirkuteynho ama wararka aan sugnayn ee saliyiraadka lahayn ay ku baaqday in ay joojiso warbaahinta iyo dhammaan waxyaabaha ay bulshada ku wada xidhiidho oo baaq soo jeedisay dawladda ku aadan in la hakiyo ama la joojiyo ama la iska ilaaliyo laga fogaado warka aan saliyiraadka lahayn sida warbaahinta kala duwan ay sheegayaan xasanow dadka ku dhintay qaraxyada qaybta ugu badneed waxay ahayd 190 qof waa tahay oo maalintii axad ahayd oo kale maalinka ay jirtay dabaaldegi ama xafladii iyo munaasabooyinkii dadkii xilligaas East Monday xafladaasi oo ay markaasi dad badan isugu umaadaan East Monday-da ayaa lagu soo beegay mid kale waxa jira muuqaalo muujinaya oo kale dadkii isqarxinaya oo kale iyo habkay isku soo abaabuleen laamaha ammaanka oo kale cid ka dambeysay inkastoo oo ay sheegatay haddana dad kala gedisan ayaa la soo qabtay maxaa lagu qiyaas karaa runtii xasanow ilaa haatan lama sheegi karo wax xaqiiqatan ka dambeeyay falkaas waa sheegteen IS way sheegatay ama Daesh oo ay ku dhawaaqday in iyadu ay ka dambeysay qaraxyada kala duwan oo ka dhacay dalka Sri Lanka meel kala duwan oo kamid ah wadankaas oo aad u badan
laakiin hadda waxaa la xaqiijinayaa dadka loo haya hadda ee la tuhunsan yahay inay yihiin 7 qof oon ilaa haatan kala cadayn inay iyagu ka dambeeyeen in kale siyaabo kala gedisan ayay boolisku uga hadleen Yusuf waxaa jira ilaa iyo 70 dad ka badan oo ayagana la soo xiray balse 7daasi maxay kaga duwan yihiin dadka badan oo tuhumada loo haysto xasan waxay kaga duwan dadkaasi waxa la leeyahay inta badan waxaa jira qofka marka la qabanayo sirdoonku wuxuu qabtaa calaamadooyin muujiya qofkan uu soo qabanayo dadka arinta indhayo waxay ku tilmaameen 7 qof ee aadka warbaahinta ugu faafay ama aadka ay warbaahinta u hadaleysa ama dalka gudihiisa looga hadlayo ee la tuhmayay in iyagu ka dambeeyeen in la soo qabtay goobtii uu dagaalku uu qarxiyada ka dhacayeen in la soo qabtay iyaga oo xagga muuqaal ahaan ka duwan dadkii ku noolaa meeshaas ama goobta tahay sidoo kale waxaa jira in kamerada ama ba qarsoon ee loo yaqaano CC kamerada ama CCTV-ga inuu duubay muuqaalo oo nin oo back wata oo kale isla markaana ay jirtay in mid kamid ah dadka ku agdhawaa meeshaas nin kamid oo kale inuu naftiisa uu ku badbaadiyay oo ka reebay inuu galo kaniisad isla markaana markii dambe uu isqarxiyay marka yaa haddii ay sheegatay balse aanan loo badinin inay ka mid tahay dalkaasi ma ka jiraan urur diimeedyo kala gedisan oo falalka nooca samayn kara marka laga reebo IS xasan saan hore soo sheegnay ururkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay ee sheegtay mas'uuliyadda qarxiyadaas waxay ahayd IS ama Daesh dawladdu inta badan waxay carabka ku haysaa ay tuhunsan tahay 2 urur ama 2 koox diimeed ama 2 urur diimeed oo ka jira dalkaas oo la yiraahdo jamaacatu tawxiid alwadaniya iyo jamaacatu millati ibrahim labada jamaaco oo dalkaas ka dhisan oo ka dagaalama ayay dawladda inta badan carabka ku haysaa dhinaca kale marka laga fiiriyo Daesh waxay ahayd kooxdii ugu horeysay u dhawaaqday waatahay Daesh waxa la ogsoon yahay in Syria iyo Iraq iyo meelahaas ay inta badan ku xoog badnaayeen inkastoo bariyahan dambe awoodoodii la weeqay oo quwado kala gedisan ay la dagaalameen marka sidee macnaha ay ku suurtageli kartaa in ay soo tallaabaan isla markaana intaasoo masaafo ah haddana dalka ay intaasoo qaraxa ay ka sameeyaan isla isbuuc gudihiisa dalka iyo xaaladiisa ammaanka ayadoo habacsanaan baa jirta soo lasma dhigi karo xasanow haddii la fiiqo urur awoodiisa oo la tabar yareeyo lama dhihi karo baabay urur awoodiisa haddii la yareeyo oo awoodiisa la fiiqo oo goobihii ugu waaweyneed laga qabsado ama meelihii ka dagaalami jiray macnaheedu ma aha ururkii inuu baabay magaciisa inuu baabay inuu awoodiisa oo dhan baabaaday wax tarkiisi iyo wax qabadkiisa inuu baabay kama dhigna macnaheedu waxa weeye habkii hore u dagaalami jireen baa laga yareeyay waatahay laakiin kama dhigna inaynan fulin karin ficilo noocaas oo kala waatahay dawladdu ma ka hadashay oo ayadu arrimahan markay dhaceen maxay talaabo noocay qaaday runtii xasan oo dawladda aad bay uga hadashay waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalkaas waxaa kaloo ka hadlay wasaaradda tacliinta ee dalka waxaa kaloo ka hadlay madaxa booliska waxaa ka hadlay dad kala duwan oo ku saabsan dawladda oo maaragtay si kala duwan uga hadlay xasanow ra'iisul wasaaraha wuxuu iskugu yeedhay amniga يعني رجاشي أمنية أما كوحدة أمنية ciidanka amniga wuxuuna ugu baaqay in amniga la ilaaliyo isagoo shacabkan u diray fariin uu leeyahay ha istijiyaan dadku hana ku noolaadaan wadankooda iyagoo awood iyo xoog leh oo uga tacsiinaya dadkii ku geeriyooday qarxiyada iyo ficilada xunxun ee dadku ay fuliyeen waxa kale xasan oo ka hadlay booliska madaxa booliska oo isagana tilmaamay inay dad la tuhunsan yahay inay ficiladaas ka dambeeyeen inay gacanta ku hayaan oo tilmaami doono dadkan inay xaqooda iyo waajibkooda la marin doono marka laga reebo in dawladdu ay hadashay ma jira dalal kale oo caalamka oo ayagana ama ka tacsiyeeyay ama siyaabo kala gedisan uga hadlay maadaama ay ahayd in dad badan dhinteen isla markaana dalal badan daris leeyahay dalku goobo badan oo dalxiisan uu leeyahay xasan waad garan kartaa ficil noocaas oo kale markuu meel ka dhaco ay ku dhintaan dad inta dhan 190 qof ka badan ay ku dhaawacmaan ilaa 500 oo qof iyo ka badan
weliba qarxuna hal mid ahayn ee soo noqdo oo qarxyo kala duwan wadanka meelo kala duwan oo ka dhaco caqliyan waad ku fahmi kartaa in dowlado badan ay tacsi ka diri karaan iyo madax fara badan inta aan hadda xusuusto ra'iisul wasaaraha Hindiya wuxuu ku jiray madaxdii ugu horeysay maadaama dalku daris leeyahay ka dirtay tacsiyada ama tacsida ka dirtay oo ugu baaqday wadanka amnigiisa in la ilaaliyo waxaa kaloo kamid ah xasanow Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka isna Twitterkiisa bartiis Twitterka wuxuu ku soo qoray tacsi oo uga tacsiinayay dadkii dhintay iyo fariin u dirayo shacabka iyo bulshada u dirayo wadanka Sri Lanka u dirayo xaaladda haatan marka la fiiriyo oo kale muslimiinta ku dhaqan ee dalkaasi xaaladooda maxaa lagu qiyaas karaa runtii xasan walwal badan ayaa la soo wajahay because dadka ficilka loo geystay waa dad aan muslim ahayn meelaha loogu geystay waa ilaa 3 kaniisadood iyo ugu yaraan 2 hotel oo meelo kale hoteelada qaarkood ay ku qabeen xaflado diimeed dadka dhibka loo geystay maadaama uu yahay dad aan muslim ahayn oo kristaan iyo waxyaabo la mid ah wadankan uu yahay wadan aan muslim ahayn waad fahmi kartaa qofka qariibka markuu ku nool yahay meel aan wadankiisa ahayn ama meel looga hadalada maxaa kamid ah ay isweydaarsadeen oo kale maadaama muslimiina dalka ay degan yihiin loogana tira badan yahay dadka qaar waxay sheegayaan aan baraha bulshada la isla maraya in hadalla ay isweydaarsadeen marka laga tago hadalladaasi ma laga yaabo arintan in ay dhaliso argoosi oo kale waayo maanta oo kale waxaa looga digay dadka inay masaajida aadaan waxaa la amray inay guryahooda ku tukadaan arrimaha noocaha soo shaki kuma kala abuurayso bulshada isla nooleed runta xasan oo aad bay ugu abuuray horta wadankan Sri Lanka wuxuu ahaa wadankii ku soo jiray qalalaaso iyo dagaal sokeeye waata muddo 1972 from 1972 laga soo bilaabo ilaa 2009kii wuxuu ku soo jiray qalalaase ama dagaal sokeeye oo aad u batay oo wadanka ku baahay marka wadanka ka dhaxgalay waxay ku saleysanaayeen dhinac diimeed mise siyaasad oo kale mise dhul iyo daaq bay dadku isku badan xasan wuxuu ku saleysnaa dagaal sokeeye oo arrimo diimeed ah sida muslimiinta meesha ku nool inkastoo tir ahaan ay yihiin iyo dadka aan muslimiin ahayn qaal qiyaas karaa waa isleedahay muslimiinta dalkaas ku dhaqan xasan dadka arinta falfalanqeeya ama inay waxay ku qiyaaseen 9% oo kale meesha waa dad aad u tirayar marka waxa la soo gudboonaaday argagax iyo cabsi aad u badan isagoo inkastoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ku baaqay in istijiyaan dadka muslimiinta ee meesha joogta dawladdu ay ku baaqday in la xidho masaajida iyo dhammaan meelaha lagu cibaadeysto muslimiinta ku cibaadaystaan dhinaca kale madaxa kaniisadaha Catholiga isna wuxuu warbaahinta u sheegay ama baaq u diray kaniisadaha dhammaan in albaabada la iskugu dhufto albaabada loo xidho si uusan u dhicin dhib kale ilaa xaaladdan ka degto oo wadanku uu ku soo noqdo amnigiisa muslimiinta aad u sii cabanaysa waxa kamid ah xasano muslimiin ku nool magaalo Pakistan xuduudda ku taal xuduudda Pakistan iyo dalkaas oo caasimada u dhow walwalkan iyo argoosi miyay ka baqanayaan mise dabcan waxay ka baqanayaan argoosi because dadka meesha lagu leeyahay muslimiin ma aha haddayna muslimiin ahayn oo la qarxiyay ama qarxiyo waaweyn iyo dhibaatooyin waaweyn kaniisado loo geystay haddii meelihii dadka aan muslimka ahayn ay ku cibaadeysanayeen la qarxiyay haddii meelihii ay xafladaha ku dhiganayeen la qarxiyay waxaad fahmi kartaa dhinaca kale inay iyaguna aragoosan karaan sidaa darteed waxay soo saartay dawladdu in la xiro dhammaan masaajida iyo macaabida dhanba dhinaca kale xasanow markii la yiraahdo masaajida oo kale cibaado bas ma aha waxbarashana way jirtaa marka ma laga yaabo inay saameyso dhinaca waxbarashada xitaa xasanow dhinaca waxbarasho haddii la eego dawladda iskuuladii dhammaan iyo madaaristii dawliga ahayd iyo tii ahliga ahayd labadaba madaxa wasaaradda tacliimta ee dalkaas wuxuu ku baaqay in la xidho dhammaan masaajida dhammaan iskuulada dawladda dhammaan goobaha waxbarashada dhan inay albaabada la iskugu dhufto oo la xidho ilaa wadanku uu ka galo xaalad amni oo ka baxo xaaladan qalalaase iyo dhiigga daadanaya hadda uu ku jiro waa tahay haddiiba haatan uu dalku maraya heer goobihii waxbarashada la xiray goobihii cibaadada la xiray isla markaana qaraxu uusan maalintii koobaad ee axadda uusan ku ekayn ilaa iyo qaraxyo kale ay ka dambeeyeen
haatan ma la isdhihi karaa in xaaladahaasi ay isbedeli doonaan oo uu ammaanku soo hagaagi karo maadaama sidoo kale isbedel lagu sameeyey xagga ammaanka xubnahaasi lagu sameeyey ma si toosay ugu lug lahaayeen mise si dadban mise shaqadeeda ay ka gaabiyeen baa lagu eedeeyey xasanow inta badan dowladda waxay ku eedeynaysaa in shaqadii loo baahna aysan qabanin amniguna hadda marka loo fiiriyo marka hore siduu ahaa maalintii horta xasan saa hore u sheegtay qarab hal maalin bas ma ahayn maalinka axadda ilaa maalinka khamiista inta uu isdaba socday kolba magaalo iyo meel isku dhadhow meelaha uu aad ku saameeyay waxaa kamid ah xasanow hotel ay ku haysteen xaflad oo u dhowaa aqalka ra'iisul wasaaraha Colombo caasimadii Colombo naftarkeedii baa qaraxyada inta ka dhaceen ha oo hotel waliba aqalka ra'iisul wasaaraha u dhow buu qaraxyada ugu waaweyn ayuu ka dhacay inkastoo dad badan una saameyn ku yeelanin oo sida kuwa kale oo dadka ugu dhamaadeen oo soo ugu dhamaanin sidaa darteed xasanow ciidanka amniga ee caasimada isla markiiba wuxuu soo saaray iclaan ama baaq ah in la xidho wadooyinka ugu waaweyn ee caasimada gaar ahaan wadada gasha garoonka caasimada diyaaradaha airportka wadadaas way xidhnayd muddo ka badan 10 saacadood maartay madaxa ciidanka hawada baaq wuxuu ku bixiyay in la furo wadada maadaama hadda xaaladdu sidii hore ay soo dhaanto waa tahay waxay u egtahay in dalku uu ku jiro xaalad adag isla markaana ilaamuhu ammaanku ay dadaalayaan ra'iisul wasaaruhu uu dadaalayay iyo dhammaan marka ma jiraa dal ka mid ah dalalka dunida oo hadda ka hor qaraxyo noocan ay ka dhaceen marka laga reebo Soomaaliya oo ogsoonahay in xaaladeedu markasta qaraxyo badan oo isdaba joog iyo kuwa qorshaysan ay ka dhacaan la barbar dhigi karo dalka Sri Lanka habka uu galay xaalad adag oo qaraxyo ah xasanow meelo badan oo caalamka iyo dunida kamid ah way ka dhaceen waxaa kamid ahaa toogashadii ugu dambeysay ee ka dhacday New Zealand waata ee ka dhacday oo waa kii dad masaajid ku jira oo cibaadeysanaya maalin jumco ah oo la soo galay nin hubaysan oo dabeetana dadkii meesha ku tukanayo dhan uu baabi'iyay waxna uu dhaawacay waxay kamid ahayd saameyntii ugu weyneyd muslimiin loo geysto ayay kamid ahayd iyadoo lafteedu tan oo kale ay ahayd inkastoo dadku ay kala bedel yihiin oo dadkaas lagu leeyahay meesha ay muslimiin ahaayeen laakiin kaasina wuxuu ahaa weerar cadowtinimo ah oo maaragtay axmaqnimo ah marka xiriir ma la leeyahay oo ma la isdhihi karaa muslimiinta maadaama hadda ka hor goob masaajid la weeraray dalka New Zealand haatanna ayagii way argoosanayaan oo kaniisado ficlan way iska dhici kartaa waa suuragal inkastoo dee wadanka una ahayn hadda haddii wadanka uu noqon lahaa waxa ugu horeeya lagu cabir sidaas noqon lahayd ama shayga marka la qiimeeyo qiimaha ugu horeeya natiijada soo baxda waxay noqon lahayd ninkii ficilka hore u geystay ee muslimiintii Switzerland loo geystay ayaa laga jawaab celinaya New Zealand waxaan xasuusanaa waqtigaasi in ra'iisul wasaaraha gabadha ka dalkaasi ay jamcadii oo kale la amray dalka inay aadaan laga daaro oo salaadii la isugu soo baxo ayada ay maatay oo qudbaysay oo ay soo xiratay xijaabo si caalamku aad u soo dhaweeyay ay isku garab taagtay muslimiinta dalalka islaamka oo kale haatan ma ka hadleen arrintan ka dhacday dalka Sri Lanka ayagu ma muujiyeen inay ka xun yihiin dhacdada noocaas xasanow ilaa haatan aan ma ogeyn dalalka islaamka wax toos uga hadlay oo arrinta cambaareeyay ma xusuusto ma garanayo laakiin waxaan ogahay sida hore aan u sheegay dalal badan oo caalamka oo tacsi ka diray waxaa kamid ahayd ra'iisul wasaaraha Ingiriiska waxaa kamid ah Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka marka saameyn ma ku yeelan kartaa arrintan in ay madaxda caalamka ama dalalka islaamka ay ka aamuseen oo aysan sidii bariga hore kale arrimaha masaajidda looga qaylin oo kale marka maxaa lagu sababeyn karaa aamuska noocaas xasan runtii anu waxaan qabaa inaysan keenin wax saameyn ah because qofka hadduu aamuso oo uusan warbixin iyo warmurtiyad soo saarin kama dhigin inuu ficilka isagu uu ka dambeeyay kama dhigin inuu ficilka raalli ka yahay waxaa jirta boqolaal muslim ama dad badan oo ama dowlooyin fara badan oo islaam ah oo ficilkaas aan raalli ka ahayn haddana iska aamusan oo laga yaabo ilaa haatan inayna deyn tacsi
inaynan soo saarin war inaynan ka hadlin inaynan barahooda aysan kaga hadlin madaxdu kama dhigna markaa inay raalli ka yihiin ficilka noocaasa waa tahay yusufow inta badan dalalka carabta waad ka hadashaa oo waad falanqaysaa dalkan haatan Sri Lanka dhaca qaaradda Aasiya isla markaana Pakistan iyo Hindiya oo kale xuduud buu leeyahay waa loo soo dalxiis tagaa ma saameyn ma ku yeelan kartaa dhinacii dalxiiska oo kale inay dadkii dalxiisayaasha imaadaan aad iyo aad bay saameyn ugu yeelan kartaa dadka aad ku hadlay waxaa kamid ahaa dad mas-uuliyiin oo Pakistaaniyiin oo tilmaamay dadkooda usoo dalxiisaya wadankan inay dhib weyn ay kala kulmi doonaan waxaa kaloo kamid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadamnimadka oo Pakistaaniyiin oo ku tilmaamay oo ku noolaa wadankan laakiin aan garanay ilaa haatan meel ay carraan oo markii hadee dad badan la laayay oo carab meesha ay soo baxday inay lagu qaldamin ama ay gacanta ku dhicin oo waliba ay leeyihiin waxaan noo soo jeediyay eeda badan waxaan noo soo diray fariimo badan oo hanjabaada waxaan ugu socotay yani cadaadis badan waad iska garan kartaa xasano dadka muslimiinta meesha jooga aad bay yarihiin marka loo fiiriyo dadkan muslimiinta ahayn dhibku wuxuu soo gaarayna ma aha dad muslima waa dad kale oo iska masaakiin oo iska magaalada iyo wadanka iska joogay waxaana kamid ahaa dadkii dhintay ee ah 190ka waxa kamid ilaa 35 aan dalka u dhalan ajnabi ah oo dalalkan kale ka yimid waxaas dhan saameyn bay ku keenaysaa xitaa dadka muwaadiniinta ah iyo dadka aan muwaadiniinta ahaynba labadaba dhib bay ku keenay waa tahay aad iyo aad waynu ku soo laaban doonaa barnaamijka haatan aynu waa tahay hagaag daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka caalamul islaam ayaa daawanaysaan waxaana iigu martiya Yusuf Mukhtaar oo falanqeeya arrimaha carabta iyo waliba guud ahaan oo gaar ahaan bariga dhexe ama Middle East aynu dib isugu soo laabanay bal haatan dhinacaas dalka Saudi Arabia Yusufow waxaa jira in boqortooyada Saudi Arabia kadib dilkii wariye Jamal Khashoggi loo soo jeediyay eedeymo tiro badan oo markaasi ay kamid ahayd dagaalka Yemen ay ka wado oo kale xuduudinta ay kula dagaalayso in ay dad badan ay ku barakaceen oo dhibaato ay ka dhalatay sidoo kale caburinta dadka arrimaha bulshada oo kale ayaa lagu eedeynaya arrimo kala gedisan oo waxay soo baxaya sidoo kale jirdilka dadka loo geysto oo kale maxay kaga duwan tahay dalalka kale ee Carabta runtii xasanow dawladda Sacuudiga waxay ku dhisan tahay boqortooyadana waxay kamid tahay marxaladooyinka hadda adduunka uu ka gudbay adduunka hore waxaa jiri jiray boqortooyo yani dadka waxa maamuli jiray ama dawladaha boqorro boqorradaas waxay yeerin jireen dhaxal boqor hebel ilaa iyo weligu socon jiray dawladda Sacuudiga waxay kamid tahay aqliyaadka yar ee dawliga ah yani dawladaha aad ku yar ee hadda ay ku dambayso boqortooyada maamulka boqortooyada yani malaha jumhuuri dimuqraadi ah waxay ku dhisan tahay boqortooyo dhaxal family gaar ah yaa maamulo oo gacanta ku haya qof kasta awood oo malaha oo Sacuudiyana oo dalka u dhashay inuu maamulku soo istaago ama xukunka dawladda soo istaago kaliya waxa isku gaar yeelay family al Sacuud la yiraahdo oo gaar ah oo boqor hebel ilaa weliga taa ku shaqeynaysa dabcan waxa jira in ayadoo qof uu xil ka hayo oo boqortooyo u yahay ay jiraan laba saddex kale oo ayagana leeyahay dhaxal sugaha oo kale oo ayagu siyaabo kala gedisan kala leh darajooyin marka hadaan fiirno kale tii Jamal Khashoggi oo kale arrimaha nooca kale aadeymo badan ayaa looga soo jeediyay oo waliba reer galbeedku aad bay ugu dhaleeceeyeen balse tan oo kale dagaalka Yemen waxaa jirta in uu xulafo dhan uu hogaamiyo Sacuudigu isla markaana ilaa 2011 uu dagaal Yemen ka socdo Sacuudigu maxay tahay sababta uu hogaaminayo isbahaysigaasi danaha goonida la isdhihi karo uu ka leeyahay Yemen runtii xasanow dalku markuu hogaaminayo boqor dalku markuu ku dhisan yahay boqortooyo dalka markayna ka jirin xorriyad firiya oo qof kasta oo muwaadina uusan xor u ahayn codkiisa inuu dhiibto uusan xor u ahayn dalka inuu maamulo hada kulligan waxa wada ognahay nin Sacuudiyana oo reer Sacuudi reer boqor ahayn
awood oo ma laha dalka Sacuudiga ku maamulo marka laga reebo xubnaha sarsare dhammaan dadka kale way dawladdu ka mid yihiin Soomaa oo xagga kamid waa yihiin xukun waayaan military waa yihiin laakiin talada kama goodo dalkan waxaa maamula tusaalahan hadda markaan eeg dawladdan aan joogno kala Kenya ka soo qaadno dawladdu waxay leedahay baarlamaan waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay ra'iisul wasaare iyo waliba qaybihi kale cadaaladda dawladdaas iyadu hal qof bay talada ku godaa qofka wuxuu dhaho waa muqaddas uu soconaya meesha xitaa haddii uu dhaho qof caan ah la soo dilo ama dal hebel lagu dilo kulka loo gudinaya shaki kama jiro because boqortooyo markaan hadda macnayno boqortooyadu waxay wadataa macno ku dhex jira ma macna boqortooyo maxay kaga duwan tahay marka la fiiriyo federalismka madaxda dunida oo kale maxay kaga duwan tahay boqortooyinimadu waxay wadataa in dadkan ay ku noolaanin xorriyad qofkan inuu haysanin freedom qofkani in uu ku noolaado taxtiga iyo gacanta iyo dalada qofkaas boqorka hoostiisa oo uu noqdo dabay xiriyeysan oo raran oo kolba meeshii la rabo loo hogaamiyo balse Yusuf waan ka dhaxgalay way ka jirtaa dunida kaleba ee aan ahayn kuwa carabta sida Ingiriiska oo kale boqortooyo ka jirta oo waxaa jira qoys boqortooyada balse waxay leeyihiin ra'iisul wasaare maamula oo isha xukuumaddiisii iyo dawladdiisii soo dhisa isla markaana dhinaca siyaasadii isagu dhundaleela marka arrimaha madaxda qaabilideeda iyo laga reebo dalxiisyada iyo arrimaha noocaas marka laga reebo marka tan Sacuudiga waxay u egtahay in taladii ay boqorto gacantooda ku jirto xasan horta wax u dhaxyaa jira hadda Sacuudiga iyo markaan isbarbar dhigan Ingiriiska hore waxaan u sheegay inay kamid tahay Sacuudiga dawladaha adduunka ku yar ama dawladaha yar ee aqaliyadka baaqiga ay ku tahay xukunkooda inay hawadiyaan ama daadiyaan boqorro ama boqortooyo Sacuudiga boqortooyadu waxay sabab u noqotay inuusan jirin sheekh caan ah oo u hadli kara ama dacwad u fidin kara si xor ah hadda waxaan ognahay Sacuudiga waxa ku xiran wax ka badan 500 oo sheekhiye iyo culimada islaamka ah waxay ku wada jiraan xabsi qaarkood waa ku dhinteen qaarkood waa tabcaan waa xanuunsan yihiin qaar kale hadda loo sii wada qaar kurka la jaray qaar kale waa ku socdaan xitaa kuwa dhalan doona kadib dhalan doona ee sheekhyada noqon doona waa qayb u hogaansami doonta xukuumadda iyo boqorka iyo qayb xabsi ku ori doonta marka boqortooyadu dhinaca diintana way maamushaa oo siyaasadda bes ku labadaba xitaa culimadu waxay leedahay boqortooyada dhinaca kaga jirta sheekhi marka aan boqortooyadaas xukunkeeda iyo qaanuunkeeda aan qaadanin amar waxa lagu bixin inuu xabsi galo haddii aan kurkaba loo guudin sida wariyihii Khashoggi oo kale marka dhinaca dumarka oo kale xitaa ayagu ma helaan intaan arrimaha bulshada aan fiirnin oo kale dalkan waxaa la sheegay in haatan lagu eedeeyay aad baraha bulshada u dhex socoto tacaddi loo geystay nin kamid ahaa dad badan oo la xukumay sanadkan oo kaliya waxaa lagu xukumay dad 100 iyo ka badan ayaa dil lagu xukumay halka sanadkii horena in trenta ka badan dilka lagu xukumay ma isdhihi karaa dalkaasi waa dal ku dhaqma diinta islaamka oo dad badan oo dalalka kale aysan ku fulinin dilka isla markaana dambiyadii lagu dili lahaa geystay ayay xukunkaasi ku ridayaan isla markaana reer galbeedku waxay ka qaylinayaan xabsiga iyo dilka iyo arrimaha noocaas oo ciqaab laga yaabo in ay raacayaan shariicada islaamka xasan horta qof maanta dhihi kara wadankaasi ma aha wadankii manbac islaamka ma jiro lambar 1 waxaan qaraynaa Sacuudiga iyo waxaan ka hadlayaa wadan ahaan inuu yahay wadanku manbaci islaamka meeshii nabiga kaleey salaatu wasalaam ku dhashay meeshii uu ku dhintay meeshii saxaabadu ay joogtay meeshii diintu ay ka soo bilaabatay diinta islaamka horta waa manbaci islaamka xukuumadda hadda jirta laakiin waxay aniga ila muuqataa shakhsi ahaantayda inaysan diinta islaamka dabaqin بمعنى دين الإسلام كأننا كل من دين الإسلام وحين فرسها إنه قفك حر النقطة وحق السماينيو إلهي سبحانه وتعالى وجود واني هذه لكن دولة أي ترى هذا وحي بقرك وربما ما يوحك على قفة وان كرملها أما قف قري كرملها حتى كتابك القريو وإن وصل صحيح بقرك أو بقرك ورالك إياه هذه لكن كتابك القرى لو أرك هل حرف وديتك حكمك
boqortooyada qofkaas waa u dhamaatay noloshiisii buu maaragtay ka takhalusay marka dawladdu waxyaabo kala gedisan bay gacanta ku haysaa oo ay ka mid tahay taladii iyo weliba dhinaca diinta waa tahay caburinta oo kale markaan u maano waxaa jira in ay dadka hataa sacuudi carabiya loo geeyo amaba shaqaale ahaan soomaaliya oo kale markaan fiirino xilligii madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaa jirtay dad badan oo dhalinyaro loo diray horaan oo kale inta badan soomaalida waa lasoo tarxiili jiray markay tagaan sacuudiga arrimaha noocaa oo kale ma wax ka hooseeya boqortooyada mise maamulka hoose ayaa dadka u geysta jirdilka iyo weliba tarxiilka xasano qodobkaas aan ka hormariyo qodoba inaan ku sameeyo isbarbardhig tusaale ahaan dowladda sacuudiga oo hadda ay ka jirta boqortooyo oo boqortooyada maamusho iyo dalka ingiriiska oo iyada laftiisa ay boqortooyo ka jirto boqortooyada waa boqortooyo isku shaati waa qabaan oo magacii boqortooyada ahaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin xagga dhaqanka iyo xagga xukun fulinta farqi weyn baa u dhexeeya boqortooyaha noqota laakiin ingiriisku waa dowlad madax bannaan waa dowlad haysata dhaqaalaheedii madax bannaanideedii iyo xukunkeeda iyada gaaro oo xukunkeedan u dhiibanin qof kale sacuudigu wuxuu kaga duwan yahay marka sacuudigu laakiin isagoo boqortooyada ay meesha joogto haddana xukunkiisii wuxuu u dhiibtay maskax kale wuxuu u dhiibtay gacan kale qof kale maamulaya waa tahay gacan kale markaad leedahay boqorka laftiisu waa rumuud TV-ga marka la daariso rumuud waa maamulo waa tahay boqorka laftiisa wuxuu yahay rumuud waa tahay wuxuu yahay dad sheeyay galbeedka oo kale buu ku tiirsan yahay sacuudigu marka la fiiriyo xiriirku inay laba dal xiriir yeeshaan waa wax iska caadiya oo hadday noqoto dhinaca ganacsiga waa la ogsoon yahay sacuudigu wuxuu qani ku yahay dhinaca saliidda oo kale cayriinka iyo shidaalka waxyaabo nooca way jiraan dalal badan oo reer galbeed ah in ay wax ku kala bedeshaan oo xagga hubka oo kale saanada militariga iyo arrimo nooca oo ganacsi kale ah marka soo lasma dhihi karo arrimahaas kala dhexeeya reer galbeedka iyo weliba dalalka kale waa arrimo caadiyan dalalku ay isweydaarsadaan oo xiriirka caadiga ah xasano xiriirka lama diidana xiriirka laba dal waa ka dhaxayn karaa dalal badan oo kulmayna waa ka dhaxayn karaa laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye wixii adigu aad fulin lahayd iyo shaqadii aad qabsan lahayd inuu qof kale ku amro tusaale ahaan xasan adigu familkaaga jooga oo reerkaaga xaaskaaga iyo ciyaalkaaga la jooga haddaan intaan ku soo wacaan ku dhaho reerkaaga sidaa u maamul waa wax saxan ma aha isagoo wadankiisa jooga sacuudigu boqortooyadiisa dhisan tahay shidaalkiisa iyo saliidiisa haysta manaaficaadkiisa kaliya dhaqaalihiisa ay kumbolatiyiin oo dhammaystiran yihiin oo kamid yahay dowladooyinka islaamka maanta kuwa ugu waaweyn xagga dhaqaale ahaan ugu dhaqaale badan haddana waa dowladaha kale ka hoos nool in isagu haysanin maskax xor ah oo uu ku maamulo dadkiisa iyo dalkiisa iyo xitaa diintiisa markaan fiirino oo kale dalka sacuudiga kaliya kama jirta boqortooyadu dalal badan oo carab ayaa boqortooyadu ka jirta ayadoo sida la ogsoon yahay madaxda carabeed inta badan ay xukunka jecel yihiin oo hadda kale suudaan aada ogeyd in laga faramaroojiyey masar oo kale dalal badan laga faramaroojiyey ma laga yaabaa kacdoon inuu sacuudiga ka dhaco oo ayagana boqortooyadu meesha ay ka baxdo oo lagu soo celiyo talada arrimaha dadka rayidka ah xasan oo aad bay u dhici kartaa hadda dadka sacuudiyaanka ama shacabka iyo bulshadu ma taageersana xukunka mamlakada ama xukunka boqortooyada raallina kuma aha shacabka in wax laga sheego horta waa khalad sacuudiyaanku waxay kamid yihiin ummadda aad ku jiljilicsan ee dadka u furfuran ee dadka dhibaataynin laakiin mushkiladu meeshay ka socoto waa madaxa kore iyo maamulka iyo boqortooyada haddii shaygu uu madaxa ka halaabana hadee minjihiis wax ma taraan markaan u laabto yani ciriiriga iyo dhibaatada haysata dadka ajaanibta ah meesha taga oo kale sida Soomaalida xilligii madaxweynihii Xasan Sheekh oo kale Soomaalida la geeyay runtii waxa la kulmay tacadiyo badan waxay la kulmeen dhib badan waxay la kulmeen xitaa jirdil xitaa qadar dawladdu hadee inay ay dad shaqo siiso ay ahayd ujeedadeeda iyo heshiiska dawladda ay la gashay ma la isdhihi karaa talabadaasi wali Soomaalidu kuma qanacsana oo dhibaato ay loo geystay dadkii meeshaasi kuma qanacsana raalin kuma aha xasan dhinac kale markaan ka fiirino hadda sacuudigu waa mabici islaamka haddii uu mabici islaamka yahay waxa loo baahan yahay inuu soo dhaweeyo qof kasta oo muslim ah dadka muslimiinta way iscaawiyaan dadka muslimiinta way istaakuleeyaan way soo dhaweeyaan gurigooda isku soo dhaweeyaan martiba isu noqdaan idan sacuudigu
waxaad moodaa in dadka cadowtinimada badan u haya uusan marnaba wadankiisa ku marti qaadaynin inuu yahay dadka ajnabiga ee muslimiinta ah yani kuma noolaan karo qof kale arrimaha oo kale markaan fiirino kale waqtiyadii marka la gaaro hadoo kale waqtiyada dadku ay cumreystaan iyo waqtiyada xajka oo kale bixinta baasaboortka lagu aaday iyo fiisaha iyo arrimaha noocaas waqtiyaabo waxaa jirta ee la joojiyo siyaasad ahaan waxaa jira inta badan arrimaha xajka markay imaadaan sacuudiga waxay isku qabtaan iiraan oo kale arrimaha nooca ah soo laysma dhihi karo waa lagu ammaani karaa boqortooyada maadaama dad badan ay martigeliso si dadkaasi ammaankoodii loo sugo loona fududeeyo sidii ay ku gudan lahayeen xajka xasan taas iyagoo ammaan kuma laha because dadkani waxay gudanayaan rukni kamid arkaanta islaamka yani waxay gudanayaan cibaado kamid cibaadooyinka ilaahay uu ka rabay subxaanahu wa tacaala oo meesha u aadayaan haddii meesha ayna dantaas jirin ama aysan cibaadadaasi jirin qofna sacuudiga maanta ma aadin xasan waxaa arki karta hadda qaxooti waxaa jira soomaaliyada fara badan oo ay martigelisay Kenya oo Kenya ay marti u noqotay oo xeriyooyin badan ay dejisay xeriyooyinka Dadaab Dhagaxley Xagar Dheer iyo Ifo iyo in ka badan iyo kaakumooyinka dadkaas suurtagal ma noqonayso inuu sacuudiga soo dhaweeyo oo uu sameeyo dib u dejin suurtagal ma aha dadkii qaxootiga ah kulli waxaa qaadanaya wadamada caalamka sida Canada oo kale Mareykanka oo kale Australia oo kale iyo Ingiriiska oo kale iyo wadamo badan oo xitaa aan islaam ahayn ba waxay siinayaan soo dhaweyn dib u dejin iyo waxay siinayaan caafimaadkoodii iyo dib u habayn deetan xasano dadkeeni Soomaalida ahayd markay soo dhaweyn ka waayeen sacuudiga iyo manbaci islaamka markay kala kulmeen ciriiri iyo dhibaato markay qaxootiga xitaa inay sii maraan oo tahriiban ay suurtagal weeyeen oo xitaa kii sacuudiga markurka la jarayo danta waxay ku khasbaysaa inay u galaan dalal aan islaam ahayn waa tahay waxa jirtay gabdho ayagu tagay Hong Kong kadibna dalkaas iyo Canada ay sheegeen inay u socdeen marka la fiiriyo siyaabo kala gedisan ayay dadku u aadaan ama sacuudiga ka imaadaan ama meel kale ka tagaan oo maangeli u weydiistaan marka laysma barbar dhigi karo labada boqortooyo mid ka jirta Ingiriiska iyo Sacuudiga ayadada waxay isku yihiin boqortooyo iyo boqortooyo la'aan waa tahay aad u mahadsantahay qaybihii dambe barnaamijka ayaynu soo gaarnay intaas ayaynu ku soo afmeerinaa barnaamijka waynu kaaga mahadcelinaynaa aad baan aniga mahadcelinayaa dhamaantiin adigii daawashada dadkana daawanayaba waa tahay aad u mahadsantahay mar labaad daawadayaal waxaynu soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkii caalamul islaam oo jamco walba hadahan oo kale aad si toos uga daawataan TV-ga caalamiga ee CNN barnaamijka aalaaba waxaa idiin soo jeediya anigoo Xasan Mukhtaar Axmed Waayeelka waxaana idiin soo markaasi idin keena falanqeeyaal ku takhasusay arrimaha carabta iyo waliba dunida islaamka barnaamijkeena maanta ayaa waxaa inoogu ahaa marti Yuusuf Mukhtaar oo asagu falanqeeya arrimaha carabta idinka oo markaasi si toos ah nooga daawanaya TV-gan waxaan idin leenahay bye bye